kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaaron kusoo qaadanayno wafdi ballaaran oo hogaaminaya siyaasi Dr. Yaasiin Faarax Caartan oo ka mid ahaa musharaxiinta madaxtinimada dowladda Puntland doorashadii ka dhacday horaantii sanadkan oo toddobaadkan gaaray degmada Qandala ee gobolka Bari kaasi oo ugu kuurgalayaan xaaladda deegaanka Qandala. barnaamijkan oo Cabdinaas Daacad idinla soo codsiinaya dhanka kaamirada. wafdiga oo hamid ballaaran kana koobnaa siyaasiyiin uu qayb ka ahaa siyaasi Dr. Yaasiin Faarax Caartan oo ka mid ahaa musharaxiintii doorashada Puntland ee ka dhacday horaantii sanadkan aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda degmada taariikhiga ee Qandala ayaa gaaray toddobaadkan horaantiisa degmada Qandala ee gobolka Bari. socdaalka wafdigan oo hamid badda ayaa markii ay gaareen deegaanka Qandala waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Qandala kuwaasi horkacayaan maamulka degmada Qandala iyo taliska ciidanka degmada Qandala. ujeedka socdaalka wafdigan ayaa mid ay ku kuurgalayeen xaaladda deegaanka iyo deegaanada hoos yimaada waxaana intii ay ku sugnaayeen deegaanka ay kulamo gaargaar la qaateen maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi. jaamac maxamed quurshe gudoomiyaha degmada Qandala ayaa kadib kulan uu la qaatay wafdigan ballaaran ee gaaray deegaankaasi wuxuu ka warbixiyay xaaladda deegaanka iyo horumarada la taaban karo ee deegaanku gaaray sanadadii u dambeeyay. waxaan kaga hadlaynaa shirkan ama ajandihiisu uu ku saabsan yahay waxyaalihii aynu qabanay 2012 ilaa 2013 iyo waxyaalaha aan rabno insha Allah bidnaa kariim la qabno 2013 waxaynu soo qabanay sida waqtigan 2012 ilaa 2013 inaan sameeyno wacyigelin badan oo aynu ka sameeynay magaalada gudaheeda iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Qandala. wacyigelin kadib waxa waqtigan degmada Qandala inaan wax barnaamij oo ka shaqeeya aan jirin waxaan bilownay inaan lab shaqo bilowno ama aanu la hawlgalno ururo badan oo hadda ka shaqeeya degmada iyadoo horey wax urura aan uga shaqeyn jirin. waxaa kooka ururka badbaado oo hadda la socda oo ay wadooyin ka shaqeeyay. waxaa jiray ururka ABD urur la yiraahdo oo ururkaas uu yahay ururka ka shaqeeya MCH ka wada labada barnaamij oo OTB-da iyo barnaamijka MCH-da oo kan nutrition-ka hooyada ururka iyo dhallaanka. waxaa jira barnaamijyada kale oo ka mid ah barnaamijkan wadaan ururka BGA oo iyaguna ka shaqeeya saddex goobood oo ay ka mid tahay Unool iyo Ceelgaal oo yana ka wada waxbarashada dadban oo hadda ka wada muddo iyo 2 sano ah. waxaa kale oo ka hawlgala deegaankeen ururka la yiraahdo tacaawun oo iyagana barnaamijyo badan ka hirgeliyay oo wadooyin ku jireen haddana ka wada barnaamijka nutrition-ka iyo balada wadada isku xirta Baladhidin iyo Xijeejle. waxaa kale oo jira ururka SBDS oo iyagana biyagelin ka sameeyay sida boqol kale oo hadda biyihii loo soo saaray magaalada dusheeda oo soor la geliyay halka biyagelin ka sameeyay. sidoo kale waxay ka shaqeeyeen tuulooyin badan oo barkadahooda ay ku sameeyeen inay raashin furfurooga ee WFP ay uga soo qaadaan. waxaa ku shaqeeya ururo shirkado iyana company laga caawiyay sida Dalman Construction Company oo isagana barnaamijyo badan nagala qayb qaatay oo naga caawiyay xagga dhaqaalaha. mashaariicaas hore degmada guma jirin annagu waxaan isku daynay inaan ururada la shaqeyno aan ka caawino wixii khilaafaad oo kaga yimaada bulshada xaggeeda. waxaan aad ugu mahadcelinayaa bulshada oo wax khilaafaad aan ka iman intooda badan isla markaana barnaamijyada ay socdaan sidii loogu talagalay haddana ay wali u socdaan. sababtoo haddii meesha aan la wada shaqeyn oo wixii khilaaf aan la xalin waxba ma socdaan. inta barnaamij aan sheegnay oo ilaa 6 barnaamij oo hadda degmada ka socda waxay u socdaan waa shaqadii xubnihii golaha deegaanka maamulkaba aanu qabanay inaanu sameeyno wacyigelin aan la shaqeyno ururadaasi barnaamijyadu ay noogu hirgalaan u socdaan. haddana waxaan rabnaa insha Allah bidnaa kariim 2013 iyo 2014 inaanu
sidii hore aan ula shaqaynaynay ururada ka howlgala degmada haddana aan ula shaqeyno cid kasta oo ka howlgelaysa degmada Qandala ururo uma xira cid khaas ah oo aan ciddaas ka shaqeynaysana ma lahan urur kasta oo Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweyno inay tahay dhul amniya inay tahay dhul Soomaaliyeed oo urur kasta uu ka shaqeyn karo cid alla iyo ciddii ka shaqeysana aan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno nagala shaqeeyaa wixii horumarinta deegaanka siyaasi Dr. Yaasiin Faarax Cartan oo kamid ah wafdiga booqday deegaanka Qandala ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabihii ay ku arkeen intii ay ku sugnaayeen degmada Qandala wuxuuna sidoo kale tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay sida wanaagsan ay u shaqeynayaan dhammaan goobaha danta guud bismillahir rahmaanir rahiim wa salaamantiin bulshada reer Qandala dhammaan waxaan aad ugu faraxsanahay waftigayga yimi inaanu halka soo booqano isla markaa anagoo indhahayo ku aragnay dhaqdhaqaaq fiican inuu ka muuqdo magaalada Qandala ee shaqeynayso degmadii shaqeynayso iskooladii shaqeynayaan isbitaalkii shaqeynayo MCH-kii shaqeynayo xabiskii shaqeynayo alxamdulillah maanta inay magaaladu meel fiican marayso ayaanu indhahayo ku aragnay reer Qandalana waa ku mahadsan yihiin maanta shaqada ay wadaan waxaan kaloo aad u mahadinaynaa inaanu ku soo aadnay maantay iyadoo telefoonkii maanta saacadan loo furayo 25 bishan afraad oo inala joogo mas'uulkii shaqada qabtay liibaan mashruuc isla markaana aan dhahayno ugu ducaynayno sharaf iyo shaqada uu qabtay inuu ku mahadsan yahay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa nidaamka muxuu ahaa ciidamada oo iyagoo maaragtay degdeg u yimi oo shaqadii nala qabtay bulshada dumarka ururada haweenka dhammaan mahad baan idiin soo jeedinaynaa degmadan waxa weeye saa ogtiin degmooyinkii Soomaaliya ugu horeeyay 1926 ayay degmo noqotay waa degmadii ugu horeysay goboladan bari oo warshada yeelatay waa degmo caan ku ah baaca mushtarka iyo dhaqdhaqaaqa waxyaalaha naga dhiman oo degmadan ka dhiman waxaan ka rajaynaynaa dadka u dhashay inay wax ka qabtaan uu ugu horeeyo dariiqa xeebta 75 kilomitir oo Boosaaso iyo Qandala kala xiray in wax laga qabto aeroboortka maxaa degmada Qandala oo saaka aanu soo aragnay oo wax yar oo u baahan xaarxaarida in wax laga qabto biyaha in wax laga qabto caafimaadka in wax laga qabto dawladda cusubna waxaan ka codsanaynaa waxyaalaha haray inay gacan naga siiso bulshadaanuna waa bulsho meel walba joogta oo cashuurta bixisa isla markaa waxaan rajaynaynaa in maadaama ay shaqeynayso degmadii dadka baaca mushtarkaay ay siiyaan cashuurta waayo haddaan cashuur la bixin waxba la qaban maayo maamulkana waxaan u sheegaynaa inay si maaragtay kartida u weydiistaan dadka cashuurta oo wixii aan cashuurta bixinna ama ay celiyaan ama la hadlaan si cashuurta loo helo haddaan cashuurtii la helin dariiq la heli maayo biyo la heli maayo waxba la heli maayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maadaama dadku badan yahay waxaan idin rajaynaynaa mustaqbal liibaan mashruuc waxaan ka sugaynaa caawin in adduunka la hadalo waa mahadsantihiin siyaasi Maxamed Cilmi Dheere iyo aqoonyahan Yaxya Wacaysa ayaa dhankooda ku amaanay shacabka degmada Qandala sida ay uga shaqeeyaan horumarka magaalada waxayna ku sii baraarujiyeen inay si laba jabaaraan bismillahir rahmaanir rahiim wa salaamantiin dhammaan dadweynaha sharafta leh ee reer Qandala sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen iyo waliba odayaasha waftiga ah oo unuun ka yimi oo iyaguna halkaas nooga yimi waa mahadsantiin dhammaantiin annagu waxaanu ka nimi Boosaaso waxaanu soo maray badda ujeedada iyo nuxurka iyo safarka wuxuu ahaa maadaama 15 sanadood Puntland ay hadda laamiga ka degtay oo wadada rafka ah hadda dawladdu madaxweynuhu uu marayo inaanu dadkeena u sheegno in loo soo jeestay wadooyinka ka baxsan laamiga inay Puntland wax ka qabato sidaa darteed inaynu inaguna ka faa'iideysano barnaamijka uu madaxweynuhu bilaabay shacabka lagu dhex marayo haddaba waxaan idin sheegayaa inaynu inagu wax qabsano oo inagu markaynu wax qabsano ayaa wax lagu la qaban karaa hadaf aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh degmada Qandala dadweynaha ku nool ee uga shaqeeyaan amniga ee uga shaqeeyaan horumarka ee uga shaqeeyaan isku xirka
ugu heelan dowladooda iyo dadkooda iyo wadankooda inay u dadaalaan oo shaqeeyaan waxaan rabaa inaan wax yar idin sheego oo ah barnaamijka GBLG-ga oo la yiraahdo horumarinta degmooyinka oo degmada Qandala aysan hadda sanadadii hore dowladda hore aysan ka faa'iideysan laakiin uu hadda ku soo aadan yahay lacagtina u taala sida la sheegay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland oo hayso ay fangareynayso UN2 oo ku soo aadan yahay degmada وأيامها إن شاء الله هدي الله وفتي دي من أيو أنت كسرة برنامج كاس وحل ربائنا الكفاية ستانين ayaa dhankooda soo dhaweey wafdigan gaaray deegaanka waxaana ay sheegeen in diyaar u yihiin wax walba lagu horumarinayo degmada Qandala anuu mawduucan ka hadlayo waxa weeye waa mawduuc yar oo aan idin sheegaya horta madaxweynaha Puntland waxaan ku soo dhaweynaynaa annagoo reer Qandala ah magaalada degmada Qandala inta jiday gacantay ku taagaysaa waana ku sugaysaa haddaad laami ka degtay tan kuwada timaada waxay tan hase yeesheen ka soo ku naga hormarisay diyaar baanu ku nahay waxaan ka sugaynaa inaad noo timaado waxaan leeyahay madaxweyne Siilaan ina Puntland ku soo duusho sharaf kuma aha daris been nahay annaguna inaan ku soo duulo sharaf noo maaha haddii saad kan waa tooy weydo waxa kan aad ku soo duuliso hadda adiga wax ku dalmay wax uu yeelay weey mideeda kale kiilka shanaad madaxweynaha kiilka shanaad iyo dawladda kiilka shanaad mahad baan u celinaya sida fiican oo yeeshay dhaqaalaha soo saaray shaqada ay samaysay annaguna reer Qandala waxaan noqonaynaa sidaas oo kale inaan noqonaa maan doonayna kismaayo madaxweynaha kismaayo Abdmadoobe waa nin fiican adduunka dhan soo dhaweeyay taniyad baan ku diray assalaamu calaykum oo soo booqday degmada Qandala aad baan anigu afkii degmada shacabka reer Qandala ku hadlaya waa soo dhaweynayna boqolkiiba baan ku soo dhaweynayna magana waafaqka waxaan kaloo ka hadlayaa waftigu wuxuu inoo ku yahay waa wafti walaalaheena oo ay noo soo diray innaga reer Qandala inay inoo digaaniin wax dhac weeye waxa soo socda waftiga ka dambeeya muhiimadii iyo maaragtay bixinaya mataqaana ku bixinaya inaynu ka faa'iideysano oo danaheena iyo hawlaheena wixii danaheena kaga faa'iideysano waxay noo sheegeen inaynu qaadano muxuu ah mujtamacana suuya ula socon baan ka rabaa kaas markaan soo dhaafo magaalada Qandala sida odayaashii iga horeeyay ay ku hadleen waa magaalo qadiima waxa iyadoo qadiimka waxay ahayd ninkii garanaya waa garanaya dadkii intuu kacaan ku dhashay ma yaqaanay laakiin intii hore waa dhulkii loo iman jiray dhaqaalaha iyo maaragtay badda iyo maaragtay muxuu ahaayay warshadaha waxaan garanayaa maaragtay gobolada hadeer waaweyn oo baadiyaha yaal iyadoo laga soo lugeeyo oo buraashada cad la soo qaato oo Qandala iyo Caluule يعني ما أنت هالكاس لوجو يماذا دقالة لقى هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلام كذب أولا نفس الدريتينا وحن قدر دار ميا الله سبحانه وتعالى عبسليسا. وأهتن كلية إنه كبد بادك ندارت إنه تاجنا هاي يتندم إنه تجدنا آخرة. وحين وصلنا قف كست أو نجمد إن مالين مالما كم إذا ربي يسأل كل مية. دار تاني واحد ودار shaqo oo qof kasta uu shaqeynayo waxa looga baahan qofka muslimka ah inuu xisaabtamo maxaa lagu keenay daartani maxaa sameysay ilaahay ma arag gelisay ilaahay ma raali gelisay waa in qofka uu ku xisaabtamo laba midkood buu noqonayaa inuu noqdo qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali geliyay iyo qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala arag geliyay labadana awaal marin buu Allah subxaanahu wa ta'ala u sheegay qofka ilaahay raaliga waa qofka badbaadaya سيد إلهي سبحانه كتاب كيس القرآن كوكيري فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ورنكي دون يرجينا إلهي لكل كيسا عمل وناسا حسميو وواحد كريه إلا قبت باريو قفكي لكادو إلهي سبحانه كفو قادو وحوي أدون كان النلالنا ماله آخرا عريري إيا النار باودن بي وإنه قفك حساب تمو محا إلهي سبحانه تاكرر لقلنا إساء عرض إلهي محا كاغا إيمان كان قفك إنه كو حساب تمو waxa ka dambeeya waa qabri waa 2 mitir lagu gelinayo qofku inuu sida ku xisaabtamo maalin inuu ilaahay la kulmayo waxa loo baahan qofku inuu dunuubta u sameeyo inuu ka qowmeeyo hadar intuu daartani uu taagan yahay waxa dhacaysa maalin ana qowmeent wax tarin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waqaalu waxay oranayaan loo kunna hadan ahaan lay nasmacu ko wax maqla
أو أما سنعقل عقل له ما كنا في أصحاب السعير ولا لأمرك وحلو بهن هاي إن هدير ذنوبته إنه قلين إنه كقومينه سمان أنت الدم بأنا قوما أو محترين إن نساس كل على معكوترين إن محلا كل عضو هدير أنت دارت أنت هنا حساب تنتو ما دام حفلة دير أي تهاي وحنكسو جبين يا هدان إلهي غير قندر إلهي هدان كعرسنو إلهي هولكس إن الله إنه إلهي ونوفو بين يا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تدوينه حتى ما قندر والسلام يا كل خد يضمر الصغير والكبير ودي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكسو جدنا يا هذا كان تحبران برا ويا قندر على كنبدي برواقا نباغيا على كنبدي برواقا نباغيا سيدي عركباله سبلارياي بلوغ ويو بشهنين واكتال واكن دوشيدا واكن بلغ لبشارة وتركي لغا رئيسي يطولدي تغاد وقول اسباب تبسي وحي وركتبي لها سهل لغو تببر بيلكينا وترتيب كالياني قويل كجوغا يكوغو تور تغو سوغادو هدي آدم تلدري قندالو غمر معها ومقال قرن تانيو قرنيجي هوريتي قدرين لهايد قرال كاينات كو عرقتين واقرال وحساب غبال لهايدين الله قدر قندالك هورية ودايدي اسو هالقامي horseedkii iyo leegadii yaan warkooda hayn arbaydinaan haysan taariikhda horumarka haddana hanadadii u kacayba degmada hagraday oo dawladaha horumar iyo holanba waa jiraan hawadu inay keento iyo inay u howlgalaan degmadana hagaajiyaanba heshiisku yahay ninkanse noo howlgalayo hungurina gel quruxday muuqanayso qandala ku taal quruxday muuqanayso qandala ku taal qabadka xeebtiyo sixiimadaha qaaliga qaniibada maydiga ayaan qardheer kuol oqanka geeliyo riyaha qayba midabka yahay nabadda qaaliga ah oo qaylo aanay ka jirin inuu qadariyaayo inuu qaranku noqora degmada Qandala ayaa ka mid ah deegaanada ugu qadiinsan gobolka Bari waxaana wafdigan inta ay ku sugnaayeen degmada Qandala ay booqdeen xarunta degmada saldhigga magaalada iyo goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee ku yaala degmada Qandala ee gobolka Bari. bismillahir rahmaanir rahiim saawir socotaan halkan waxa weeye qoorigii Qandala oo Soomaaliya ugu weynaa qoorigaas wuxuu ka bilaabanayaa badda meesha ka gasho halkan wuxuuna soconayaa 12 kiiloomitir ilaa tuulada Butiyaalo buu soconayaa waa qoori caana oo muxuu ahaa dunida dhan u taqaan qoor baadil taariikh ahaan markii la fiiriyona Butiyaalo waxay ahaan jirtay meeshii 2,000 sano ka hor taabka lagu sameyn jiray Soomaaliya caan ku ah qoorigan waxaa looga faa'iideysan karaa doonyaha iyo maraakiibta inay galaan xagaaga in dareyda lagu sameeyo in lagu nadiifiyo inay inta xagaaga ku jiraanin haddana nasiib wanaag sanadkii hore waa uu furmay daadadkii badnaa baa furay saa u jeedaan ay baddu soo galaysaa ilaa iyo waxay soconaysaa Butiyaalo oo baadiye ah halkaasna waxa weeye meel xoolo joogaan oo daaq leh marka fil mustaqbal waxaan rajaynaynaa inay halkan noqoto dekedii magaalada Qandala oo la xiro intaan halkan la xafaaro waayo waa qoori samaysan weeye waana dhagax caano marka hindisadaas iyo barnaamijkaas waxa weeye mid ku jira degmada Qandala ay ku taageysay waxaan rajaynaynaa fi mustaqbal iyadoo lala kaashanayo dawladda saaxiiba oo dhaqaale leh in la sameeyo qoorigan oo looga faa'iideeyo Soomaaliya oo dhan
looga faa'iideeyo marka intaas ayaan ku dari lahaa wixii aan dhaafana guddoomiyaha degmada xigeenada ayaa sheegaya guud ahaan daawadayaal barnaamijkeennii gaarka aan ku eegaynay wafdigan isugu jira siyaasiyiinta ganacsatada iyo aqoon-yahanada ee gaaray degmada taariikhiga ee Qandala waa nageynta anigoo Cabdinaasir Axmed Xuseen Cabdinaasir Daacad ee barnaamijkeedina socodsiinay dhanka kaamirada mahadiha ka gaadhay waa Axmed Nuune waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteeda intaanu barnaamijkan lamida ku kulmi doono amaana Allah